السلام عليكم. فيديوغي waxaa ku hore ku aragteen xanuunka la yiraahdo afka Faransiiska schizophrenia ama afka Mareykanka schizophrenia lagu yiraahdo dadka sidee bay wax u arkaan sidee u nool yihiin iyo dadka inta loo gargaaro ayaan isku aragnay videogii hore. Videogan waxaan kaga sheekaysan doonaa dadka maxaa loo qabanaya talo sidee wax lagu qabtaa iyo maxaa loo qaban lahaa insha Allah daawasho wanaagsan. ليعيش الحب ويحيا الناس فهنا روح وهنا إحساس ليعيش الحب ويحيا الناس فهنا روح وهنا إحساس يا بهجة أيام الدنيا ما أحلانا بالحب وناس قلبي وأنا قصة إحساس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا حنك هالنا حنوكي يعني فيديو جارو كوسو أرجعني لو يقاني سكيزوفريني أم بافكا إنجليش كسكيزوفرينيا سيدي با وحلول قبل كريدت كان سؤال شو جوهر يسي سويدي مركا حنوكا يراديني وحي هيد والحنون كطلو ما حنون دتكو جينن أي جلين با سو حنون مسك حني دارتو ده هدي أوجاتي وحوا قبل كريسا marka waxaan arkay sheekhiin qaarkood waxay leeyihiin xanuunkan waa jinin weeyaan quraan baa lagu akhrinaa oo ka baxaya qofku su'aal wad bas weydiinaysa waxa leedahay sidaaba dhaxay 600 kun oo qof ee Faransiiska degan talow yakana marqo yaa lagu akhriyo quraan baa lagu akhriyo mi quraan lagu marxan marka muhiimadu waxa weeyaan hadii aan soo gabagabay sheekadan qofku hadii quraan sheekh oo geen kari sidoo quraan ku akhrin karayo ku soo akhri quraanka qofku diidan ma jiro soo akhri الحمد لله هدوك بوكسدو تاو في عن تايبا او ادي بو في عن تاي الحمد لله هدو تاكو سو بوكسدو واكا كود القران قفكا دينتو كل دزال سيدو wax ku hagaagi la diinta insha Allah talabaad bay noqotay hadii aragtid qofka marka u geeysid sheekha wax uu qan waay sheekhu quraan uu ku akhriyo waxba ka tiri waayaan marka waa inta ogaatid xanuunkan xanuun maskaxaaneed marka qof kastaba hadii maanta ilku xanuunay waxa loo geeyaa dadka ilkaha ku daweeyay isku geeya hadii meel ku xanuunayso qof kasta waxa loo geeyaa qof ku takhasus laha marka waa ku bogsanaysaa isaga de cilmi la oo ku sheegi karaya wixii meeshii ku bogta oo degdeg ku daweyn karaya marka xanuunkan waa xanuun maskaxaaneed waxa loo geeyo dadka ku shaqale waxa marka ku shaqale psycholog amba psychologist afka Englishka dadka u geeya dadka baa ni sheegi wixii kan la sii lahaa hadii uu baahan yahay qofku dhakhtar inta la geeyo xaalad badan bay kala marmaraan kliniyada badan way jiraan ma doonayo maanta in sheego kanika la qaadan u geeyo qofkii ku takhasus lahaa takhasus kanika kule haduu nigeerada kanika siya kaninadana badanka waxa ogaatiin waqti badan buu baahan yahay lianna xanuunkan xanuun fudeed maaha xanuun waqti badan ku bogsada weeyaan marka kaninka siya waqti kastaba siya kaninka uu ni soo qoray doctorku la ogaadan la kula dadaala taa marka waxay siin qofka kaninkiisa asiisiin haddii aragtiin isagoo soo lanaanaya oo ku soo degaya oo kaninadan ku soo kaga baaba'aysa sheekayaashii wuxuu arkayso ku soo degaya kuwada kaninada qaarkood kaninada waxay arkaan wax qofkii aag ka dhigay bilaankii oo sida uu joogo bas oo way ka wadaayaan kula cabsoodaan taa way dhacdaa marmar oo qofkii uu ku noqdo ku hadli waayo kaninada qaarkood uu si xirxiro uu halis ku galo marka mushkiladu waxa weeyaan ma kanina siina ma siino waxa ay ku dhan waxaan iga jawaabaya qofka ku takhasus leh markii kasta weydiiya kaninkan aan qortay maxaa nagu qortay ma waxba ka aragtay mise waxba sidee nagu qortay kaninkan haduu ni macnayo kaninkan waxa weeyaan oo waxba u taraysa oo niga aska hubsatiin kaninkan inta wax u tarayo marka u qoray walaalahayo kaninada waxa ogaatiin badanka waxay leeyihiin waxa la yiraahdo xanuun kale iyo kuna dibo wataan marka iska ilaaliya kasii foojignaada xanuunada kale ay dawo wataan hadii marka xanuunada kale diyaar u tihiin usaguna ni sheego markii kasta weydiiya xanuunaday maxay dibo wataan oo dib u xanuun kale keeni karayaan xanuunada marka wal ogaatiin marka wax ka qaban karaysiin oo u tagteen ninkii ku shaqalaha kaniino ni soo qoray oo ni sheego waxa qabsanaysiin ko kaniinada horta siiya ma siisanta talabaad waxa weeyaan waxa la iman karaysiin qofka illaha ku deynina illaha kaga tagina markii kasta la sheekaysta qof sidiina ka soo qaada leena markii hore qof sidiina ka soo qaada la sheekaysta qofka la wadaaga la qosla haduu ma cireere uu dareemayo uu doonayo intuu kali joogo la sheekaysta illaha ku deynina markii kasta
u imaada u sheekeeya waxa ku dadaashin arinta ugu muhiimsan qof kastaba waxa uu jecel yahay maanta dadka xanuunka ku dhacay markay caadi hayeen waxbay jeclaayeen kaba soo qaad dad baa jeclaa xawayaanka kaba soo qaad dad baa shashir jeclaa kaba soo qaad mid kasta waxa uu jeclaa ininka garanay qof kalena ma garanayo doctorkuna ma garanayo qof kalena ma sheegay ininka garanaya marka waxa waxaynaysiin qof kasta wuxuu jeclaa ku dadaala hadduu jeclaa badda intuu tago badda yargeeya biyaha yartaa taabsiye qof kasta wuxuu jeclaa siduu u raaxaysto waxaan saan iga leeyahay wax kale maaha qofka markuu xanuunka ku nool yahay runtii buu ka dhex baxaya marka runta sida ugu soo celisiin wuxuu jecel yahay waa inta tustiin wuxuu jecel yahay waa inta u qabatiin wuxuu jecel yahay ugu gargaara marka wuxuu qabsan karaa isagu marka xanuunkan miyir baa looga yarbaxaya miyir ha sugina doctorku markuu saa kaniinada igu soo qoraba intuu qofku bogsado degdeg waxa waqti dheer bay qaadanaysaa samir bay u baahan tahay marka walaasha iyo walaalka ay daawanayo waxaan iga leeyahay waqti soo qaado bil ha noqoto konjiya oo qofkan u hurtid waqtiga oo istiraadi qofku uu ku gargaaraya waqtiga waxa siisa la joogsaga la sheekayso u sheekee wixii la qaban kariis la qabo marka waxa ogaan doontaa bisha markay dhamaato qofkii soo caafimaadaya laana waqti baa siisay qofka maanta waxa ugu haboon waa waqti aad siisid walaalka marka waqti siisid isaga iyo riba uu dareemi doonaa dhibaato badan way kula soo kulmi doontaa laana dad fudayd maaha dad badanka waxa arki doonta ayagoo ku caayaya iyo ku dhibaateynaya marmar halis bay naftaada u macalaagali karaysaa taayo ku dhan waan ogsoon yahay ma waxa ogaataa ilaahay raali buu ka yahay marka ku arkayo adagoo u dadaalaya qof walaalkiis siduu uu aqliga u dib ugu soo noqon lahaa oo caafimaadkiisa dib u heli lahaa siduu nolosha ugu raaxaysto ugu dadaalo diintiisa ahelkiisana wax ugu qabto marka ilaahay jazaa ajr badan buu ka siinaya walaalkayo wallahi insha Allah ku dadaal oo arki doontaana noloshaadu arki doontaa fududaata marka kan jibin waxa waxaysa doctor marka ugu horeysa ugu dadka ku shaqale ma ogeysay waxa waxaysa markii kasta wuxuu jecel yahay wuxuu jecel yahay kala sheekayso wuxuu jecel yahay runta ugu soo noqdo mar inta ma u qabatay kanadana ma siisan inta ma qabto inta ugu muhiimsan labada hadii u qabatid insha Allah uu caafimaadaya waxaan kugu waaninayaa hadii aad dad weydid dadka Yurubta jooga dhakhtarada Yurub hadii qof la heli karisid la soo hadal dhakhtarada Yurub hadii ay wax kula qaban karayaan ama wadanada joogtid hadii ay ka heshid dad ku takhasus leh way fiican tahay ugu fiican u gee hadii ay ka weyd wadanada joogtid waxa isku dayda dad wadanada kala joogo ku takhasusay waxan qof kasta waa inta loo geeyo qofkii u cilmi lahaa marka hadii awgiis qofkii u cilmi lahaa waxan insha Allah ilaahayna lacagtiisa uu ku siin way ku soo noqon doontaa nata ilaaha ogow wallahi wax kasta oo qabatay dar ilaahay insha Allah waa heli doontaa marka ku bixi wixii inta halkaaga qofka u soo noqon lahaa ma ku dadaashay ma aha shay kii ku haboona dawadiisi ma siisay ma u gargaartay oo ma la qabatay wixii u baahan yahay insha Allah qofka ilaahay uu bogsiin insha Allah anu duceynaya dadka ku dhan inta uu duceeyo walaalahay marka gabagabadu hadalka waxa weeyaan war qofku bogsan karayaa aan ku dadaalno han ka niyajibin sidoo kasto uu noqdo walaalkeen waa walaashin inta ku daawan lahayd isagoo dariiqa fadhiya oo kolba markii kasta isla yaaban wuxuu qabsada la waqti yar si lacag yar u hur intaan ilaahay ku gargaari marka anigu afaantayda maanta niguma oran karayo qof kasta oo dabadaaba ku haboon ka kala siiya ka kala waxa kale uu qabta ka kale laba shay baa jira dabo iyo iniko la socda dawada qofka ku takhasus laa niyo qoraya anu ku takhasus ma yihi doctorka ku takhasus laa u tag saga niyo qoraya saga wax kasta ba ni sheegi la socda markii kasta intuu nikan doctorka qofka waa intuu ka soo qaado qofsaguna u bogsanaya oo hadii sagi ilaa uu aaminsan bogsanadi qofka intuu bogsan doono waa dhibaato weeyaan way ku adkaan doontaa marka doctorkuna waa intuu dadka si fiican u la hadlo waana huba doctor kasta waa alxamdulillah maanta ilaahay dad cilmi fiican buu leeyay oo dadka si fiican u la hadla oo wax kasta uu qaban karaya marka qof kasta uu geysin uu ni qaban insha Allah ta ugu weyn anigu waxa weeyaan anigu celceliyo videoga dhexdiisa inuu wax u qabatin muu qofka noqonaya hadii aad waxba u qaban weydin qofka waxba ka sugina hadaa wax badan u qabatina qofka rajuleeyay marka isku taga hooyo aabo ima yar dadka ku dhan qofka inta wax qabtaan sidoo horumar gaar la wax arki doontiin marka saan igu sheegay wuxuu jecel yahay qabto wuxuu doon ha sheeko cunto fiican haduu doono cunto fiican siiya haduu shishir doono shishir haduu wax kasta doono haduu waxba doorin ku khasba
haddii uni dhibaatay u adkaysta u raaxaya markii kasta qofka nolosha dareemsiya markii kasta kula soo ordina waryaa wardiinta war salaada tuko waxaan ka qabso dhibaatadiina ka haysta inako dhibaatadiina iska haysta waxbana ha ka orina wixii ugu gargaari kari soo qabtay laakiin saga hadal xun ka tirahdin haba yaraatay horta joojiyata marka waxa wax u qaban kariisin qabta insha Allah ilaahay noo daweyn waxaan iga leeyahay arjir kasto qof bil aadan u qabatid hagii ilaahay baa ka helay walaalkay walaashay malin wanaag wan jeceliyahay waan soo salaamay waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh